السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. داود يلكسو هذا برنامج كيني مدشا قويهان كا وعلى بحليادان وكالات كلا سعطان شاشة عالمي هون كيبل تي في. برنامج كينو أهمي تضبع الله أيان هدبو حانو هذلنا وحيابها كسابسان أقونتا يوح براشادا يسيدو وكلا سياسة كجرت قودهان دالك الصوماليا. toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa xaaladaha waxbarasho ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale qurba joogta Soomaaliyeed ee wax ka bartay dibadaha sida ay wax ugu tari karaan dalkooda. Waxa barnaamijka marti iigu ah Maxamed Cumar Salaad oo ah arday wax ka bartay jaamacadda University of Nairobi kana baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti iigu ah Ahmed Cabdixafiid Maxamed oo ah macallin in ka badan 20 sano ka soo shaqeynay gudaha magaalada Muqdisho. wareen kusoo dhawaada barnaamijka madasha aqoonyahanka ee Home Cable TV. anigu ku horeynaya Maxamed Cumar Salaad waxa tahay arday wax ku bartay qurbaha waliba qurba aad ugu dhow dalkii hooyo ee Soomaaliya. xaaladaha waxbarasho ee ka jira dalka Soomaaliya adiga oo soo koobaya barbar dhigayana mid aad wax ku baratay ugu horeyn faafahin naga sii. bismillaahir rahmaanir rahiim. ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa TV-ga Home Cable TV iyo gaar ahaan Cabdi Fataax iyo kaameramanada iyo dhamaan shaqaalaha Home Cable TV arinta horumar kale ay mar walba la garab taagan shacabka Soomaaliyeed waan ku hambalyeynaa. haddii aan usoo guda galo barnaamijkeena maanta runtii waxbarashada Soomaaliya xaaliyan ka jirta iyo muddadii hadda dagaalada uu jiray iyo markii la barbar dhiga mid ka jirta wadamada dariska runtii aad bay u kala gedisan yihiin taa oo la dhihi kara runtii gaab weyn ama firaaq badan jiro. waxyaabaha inta badan ardayga ama uu laciifnimo ka dareemo uusan kula qabsan karin wadan kale waxa kamid ah waxbarashada asaasiga ah sida dugsiga dhexe dugsiga hoose haddii ardayga uu galab ka ahaato ama ay noqoto mid standardkeeda ama tayadeeda ay liidato way ku adkaanaysaa berri markuu tago wadan kale. Soomaaliya waxaan xoog saarnaa waxbarashada sare jaamacadaha badan kollejyada badan xoog la saar in la tayo jaamacadaha cagsigeeda wadamadan dariska sida hadda Kenya wadankan wax ku bartay waxa xoog la saaraa tayada dugsiyada hoose iyo kuwa sare inay ay mar walba adkaato. aan ka dhaxgalo adiga Soomaaliya miyaad ku soo baratay ilaa dugsi sare mise ilaa dugsi sare waxaad uga baxday dalka Kenya? dugsigayga dhexe iyo sare waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho iskuulka Mujamac Mulqura. okay maxaad caqabadaha la kulantay adoo dugsi sare ka baxay markii aad timid dalkan Kenya aad rabtay inaad jaamacad bilowdo caqabadaha aad kala kulanto kugu horeeyay kugu weynaa maxay ahayd? wallahi markii aad ka timaado Soomaaliya wadankan timaado runtii waxaad dareemaysaa inaad aad ugu dambayso ardayda kale inta badan waxa aad week ugu badan oo ka jira ama daciifnimada badan dhanka luqadaha. Soomaalida inta badan markii wadamada kala tagaan waxay ku fiican yihiin mawaadka cilmiga sida physics iyo chemistry biology aad bay ugu fiican yihiin laakiin markay timaado luqadihii iyo qaabkii formalka waxbarashada ardaynimo loogu talagalay iyo heerka markaas dugsi sare u taagnaado qofka yacni aad bad kaga hooseysa marka waxay ugu qasabtay inaan mar labaad haddana dugsi sare sameeyo kadib college aan ka sii aado dan markaas aan jaamacadda sida ugu gudbo marka waqti qaadatay. waa mahadsantahay Axmed. Axmed waxa tahay macallin in ka badan 20 sano ka soo shaqeynay gudaha dalka Soomaaliya sidoo Maxamed ka dhawaajiyay adigii oo ka soo baxay dugsi sare dalkii uga soo baxay marka aad timaado dalalkii u dhawaay adoonan waliba qurbo kala shisha ama wadamada horumar aan sii tagin waxa caqabad kugu ah inaad dib ugu laabato hadana dugsi sare aad ka soo baxdo maxaa u sabab arintaas? markii aan ka soo baxay dugsi sare marka aad ka soo baxdo Soomaaliya ku soo barato halkan aad timaado waxa qasab ayuu yiri Maxamed inaad hadana mar labaad ku laabato dugsi sare maadaama aad ku standard ahayn ardayda halkan wax ka baratay adiga ka macallin ahaan ogaalkaaga maxaa arintaas u sabab? waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim sidoo walaalka sheegay horta daayto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wariyaasha dhammaan iyo shaqaalaha Home Cable TV. run ahaantii marka su'aashaas waxa weeye waa dhibaatada wadanka haysata qayb kamid ah maxaa yeelay wadanka qayb badan ayaa taabatay in marka macallinkii ama ardaygii Soomaaliya kaga soo baxay dugsi sare markuu qurbaha yimaado oo meel kale ka soo bilaabo ama ka hooseysa waxa dabcan kalifay in waxa waxbarashada Soomaaliya kama lidata qaybaha kale marka la fiiriyo xagga standardka markii laakiin waa xagga communicationka iyo xagga skillska luqadaha
waxaa dhici karta anigu waxaan tijaabiyey markaan Soomaaliya joogay in macalinka ka ahaa muddada dheer maadooyin badan baan dhigi jiray oo kala duwan markaan qurbaha imid haddaan comparison ku sameeyo ardayda hadda Kenya oo kale maadooyinka science-ka xisaabta physics-ka chemistry biology-ga waa lagaga sarreeyaa ardaydan waxaa kaga sarreysa ardaydii Soomaaliya laakiin wax walbaba wuxuu leeyahay stable iyo heer uu ka kaco waxbarashada Soomaaliya heerar kala duwan bay soo martay waxaan u kala qaybin karaa 4 qaybood qaybtii gumaysiga markuu joogay oo taqriiban lagu qiyaaso iskoolada ka jiray wadanka dugsiyada sare markaas 25 inay ahaayeen على مستوى الجمهورية مستوى الصومالي أردن مرحلة دي رأيت كيف سوى قاري مرحلة دي وحنا سوى قاري الميلتري كعنكي محاس هذا مرحلة دي بربرك مركز تاريخ والباب أدويدي صدقي اللي يدرس وحبرني يدقي وحبرني يبا أنا هذا التاريخ ده أنا هي أنت هذا كوجا هي صوماليا وهي كهرسي ما دوين كاس كما هو سيسا أرضيا وحكينا يا مركز إنت بلو عليه وأون حاجة اللقطة هاي الصومالية هذا دمان ذلك مركو بربوري وحلا بربوري وزارة ذي هاي دولة كم جرتو حديث المركز دولة ذي كجرين برنامج كي وحا بدل يا مركز إنه والبابا وحو قبان كرا وقبته دنك هاي يكلي عند دنك هذا كتوسي با وحلو دسي ودنبين تاني والبابا وحو أوذب وحكو بريجي دتكي لقدا مركز عربي أحب بند البربوركي أنت هذا أنا وعن جوجي Kenya iyo wadamada kale markii la yimaadana wadanka Kenya oo kale waxay ka dhaxayeen gumaysigii ayaga gumaysiga Ingiriiska in ay ka dhigaan systemku wax lagu barto wadankan Ingiriis haddaba marka luqadii ka dhisnayn way kugu adkaanaysaa marka inaad horumar kala sii samayso sidoo walaalkii Maxamed Umar Salaad oo hadda sheegay taasana keenaysa laakiin marka la fiiriyo run ahaantii dhinaca kale ardayda Soomaaliya ka timid way kaga dambeeyaan maadooyinka qaar kamid kama hooseeyaan marka luqadan aan dhihi karaa dhibaatada hadda ku habsatay Soomaalida soo qaxday isfaham darada waxaa leedahay luqadda carabiga ay dadka Soomaalida wax ku barteen hadaysan imaanin dalalka Afrikaanka oo ay aadaan dalalka Carabta oo kale si toos ah ula qabsanayaan jaamacadaha si toos ah uga bilaabayaan dabcan meelaha ugu fiican hadda waxaan xusuustaa markii wadankii laga soo qaxay oo daraas jaamacadii laga soo baxay carabiga ku baxay markii master degree-ga loo doontay ama magisterka wuxuu ninba sida u yaqaano ardayda qaarkood waxay galeen kaalimaha ugu horeeya dadka Carabeed markay aadeen laakiin halka kali ah ee ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee soo qaxay ay taabanaysa waxa waaye waa luqada laakiin maalmuhu luqada markuu luqada fahmo wuxuu noqonayaa ardayda ugu horeeya noqonaya marka waa luqada aan silahay aniga hadii aan soo koobo waa gartay ardayda Soomaalida ee gudaha wax ku bartay hadda waxa laga furay Soomaaliya jaamacado markii uu ka soo baxay dugsiga sare waxa uu galayaa jaamacadahaasi jaamacadihii markii uu ka soo baxo shahaadadii uu ka qaato haddana mid la aqoonsan yahay ma ardayga soo dhibaato kuma noqonaysa arintaas laftirkeeda dabcan maxaa yeelay ardaygii wuxuu waqti badan u dhimiyey habeen badan u soo jeeday maalin badan indhihiisa ay ku daaleen inuu fiiriyo buugga qalinkan uu gacanta ku hayo waxaa ku dhumay dhaqaaleya waqti badan marka ardaygii waxay ku noqonaysaa marka niyad jab in wixiisi aan la aqoonsanayn waa midda keentay in la asaaso hay-ad u dooda ama barnaamijkii dawladda qaban lahayd inay daboolaan isku daya sida hay'adda Benis iyo SAFE oo kale barnaamijkaas in badan bay isku taxallujiyeen wadamada qaarkoodna way aqbaleen wadamada qaarkoodna way diideen laakiin inta badan shahaadadii Soomaalida waa la ictiraafay wayna qaateen dadkii laakiin haddii la diido waa dhibaato inteeda leeg haddii ay socon weydo waa dhibaato inteeda leeg waxyaabo waxaa jira marka lagu qiyaasay heerarka ama shahaadada lagu qiyaasay markii laga hadlayo cycle-ka waxbarashada marka haddii ay buuxiyaan shuruudahaas dabcan waa la aqbali meelo badanna waa la aqbalay hadda wadankan Kenya hadda anagu aan joogno waxaan xusuustaa arday badan oo Soomaaliya jaamacad kaga soo baxay master degree ku diyaariya waxaan xusuustaa arday badan dugsiga sare kaga soo baxay jaamacadaha ku diyaariya inkastoo meelaha qaarkood lagu xujay inay soo diyaariyaan KCB waqtiga doonaba ku qaadatay sidaan ognahay Maxamed ardayda maanta waa macallimiinta bari waxaad ka baxday jaamacad ku taala dalkani Kenya dalkina waxaa ka socda dib u dhis aad u ballaaran isbedel badanna waa uu ka muuqdaa adiga qorshahaaga iyo qurba joogta waxbaratay sidaada oo kala ah maxaad isleedahay waad ugu faa'iideyn kartaan dalkiina hooyo ee dhanka waxbarashada horta waa su'aal aad u muhiim ah qof walba ee waxbarto wuxuu wax u baranayaa dadkiisa iyo dalkiisa runtii jaamacadda Nairobi arday badan baa dhigato sidii uu sheegay walaalkay Cabdul Xafiid
standardka jaamacadaha xagga looga imaado runtii way kala gedisan tahay. Marka qurbo joogta iyo kaalinta kaga aadan inay wax ka qabtaan dalkii ay dib ugu laabtaan aqoontooda dib loogu celiyo, yacni waxay ku xiran tahay in nabad laga helo dalkii oo meelo la isku halayn kara marka ayada ku laaban karta. Inkastoo hadda markii Soomaaliya dhowr qayb ay tahay, inta badan waa la isku halayn karaa, waa la tagi karaa ilaa meelo yaryar ma ahan. Runtii waan isku xirannahay, gruubyo baan leenahay. Jaamacadda hadda Nairobi waxay leedahay arday Soomaaliya oo isku xiran. Soomaali markaan leeyahay macal Soomaalida Kenya ku jirto, haddana wixii hoos isu sii fahmaya reer Soomaaliya ayagana way isku xiran yihiin. Mar walba programyo iyo mid walba jaamacadda dhameeya, yacni shaqada ugu weyn ee la aado qof jaamacad soo dhameeyay hadda waxay noqotay hay'adaha in laga shaqeeyo. Dhammaan hadda ardaydii kasoo qalin jibisay jaamacadaha Kenya intaan garanayo waxay ka shaqeeyaan hay'adaha dalkeena dib ugu laabteen. Inta ayada waa horumar. Ardaydii waa la soo wada qaxay dhulkan Kenya la imaaday. laakiin shaqadaas hay'adaha waa shaqo individual qof walba u qaasaho asaga naftiisa wax ku raadsanayo. laakiin in qofkii dalkiisii waxbarashadii ka jirtay liidatay maadaama uu arkay asaga qofka kaliya ee dareemi kara oo qof dalkiina wax ku soo bartay markii dibadda u yimidna wax bartay, haddana dalkii u baahan inuu wixii asaga uu arkay uu haddana dib intuu ugala laabto uu dadkii ka kiciyo, baraarujiyo, isbeddel muuqda meeshii laga sameeyo. arrintaas maxaa diidaya mise in ku jirtaa fikradda? waa muhiim, wayna ku jirtaa. Runtii haddii waddan dowladdiisa dhexe ay burburtay, waxbarashadii iyo tayadii ay lahayd, wax tayo waxbarasho la yiraahdo inta badan Soomaaliya hadda laga qiimeeyo, adduunka ka qiimeeyaan ma jirto ilaa in yar ma ahane. waxaad arkaysaa qof walba title-ku rabo qaadanaya, Professor Hebel, Dr. Hebel, Sheikh Hebel, Macalin Hebel. yacni meeshaas waxaa ka garanaysaa wax tayo iyo quality ama curriculum ama manhaj isku xira dadkaas inuusan jirin oo mideeya. hal la horumariyo marka la yiraahdo dadka iyadoo hal la wacyigeliya, yacni waa arrin qaran ee arrin qof shakhsi ama arday group ay wax ka qaban karaan ma ahan. laakiin haddii la helo dowlad dhexe oo arrintaa u istaagta, waa la helayaa dadkii qualified ahay ee u soo baxay shaqadaas ayada wax ka qaban kara, waa la helayaa sidaan aaminsana. inkastoo dhibka uu yahay dhib qaran uusan ahayn dhib shakhsi iyo urur midna wax ka qaban kara. Axmed, aan kusoo laabto, maadaama aad tahay macallin, halkan marka aad timid howlihii macallinimo aad dalka ka haysay ma sii waday mise waa iska joojisa howlo kale iska gashay? horta macalinimadu horta waa meel ka mid ah waxyaabaha soo mara bani aadamka kuwa ugu qiimo badan. bani aadam maskaxdiisa in la dhisana wax sahlan ma aha. dalkii markii aan joognay waxaan ka mid ahaa macallimiintii magaalada Muqdisho, runtii iskoolo kala duwan oo dugsiya sare dhaxaba leh macallimiintii ka mid ka ahaa. maadaama anigoo da'yar aan bilaabay macallinimo, shaqo kale oon markaa garanayay ma lahayn. dalka markaan imid Kenya ayadii baan haddana halkii kasii bilaabay kana sii ambaqaaday. laakiin halkii ay ka ahayd inaan Soomaali wax baro, hadda waxay noqotay inaan Kenyaan iyo Soomaali iyo dad kaleba inaan haddana wax sii baro, oo aan inkastoo ay jiraan shaqooyin kale oo aan qabto oo hawlo kale ay ii jiraan, haddana weli macallinimadii sayntaan hayaa weli. waa gartay. maadaama macallin aad tahay, ma isku dayday in iskoolaadkan Kenya wax ka jira manhajka ay wax ku dhigayaan oo kale ama jaamacadaha intaad la tashataan xiriir in la sameeyo iskoolaad kale oo aad la soo shaqeyso Muqdisho ama Soomaaliya meelaheeda kale ku yaallo, inaad xiriir toos ah sameysaan si shahaadadii ardaydaas Muqdisho wax ku baratay iyo kuwan ay macnaha isweydaarsi ugu dhaco, ardaydaasna ay waxbarashadii uga faa'iideystaan ayagoo dalkoodii jooga? horta ilaahay mahadiis waxaa ah hadda inay dalkii nooga curutay dowladdaas aad moodo hadda inay dib usoo yagleelayso kaalimihii waxbarashada, hadday ahaan lahayd wasaaraddii waxbarashada iyo wasaaraddii tacliinta sare, iyo hadday ahaan lahayd agaasinkeedii iyo dhammaanba qaybihii kala duwanaa waxbarashada. keli waxaan tabaynaa, anugu aan tabayaa hadda inay maqan tahay. run ahaantii hay-ad kaalin weyn ka qaadan jirtay waxbarashada Soomaaliya, hay-addii madbacaddii qaranka oo manhajta Soomaaliya sanad kastaba daabici jirtay, horumarin iyo dib ku sameyn jirtay ardayda iyo manhajtaba ku sameyn jirtay. marka aniga hadda maalin dhaweyd waxaan u safray Soomaaliya, dabcan qayb bay ka ahayd safarkayga inaan bal aan fiiriyo manhajkan Kenya oo aan isleeyahay runtii waa manhaj aad u qiimo badan in Soomaaliya la geyn karayo.
saafay baan sameeyey runtii meelahan booqday Soomaaliya kamid ah waxaa ii soo baxday in ay baahi badan jirto maxaa yeelay Soomaaliya Kenya rabaa Kenya waxay noqotay dal dhan oo dal dhan u dul degan yahay mujtamac badan oo Soomaaliya oo malaayiin lagu qiyaasay ayaa Kenya yimid Kenya markay imaadeen inay dib u noqdaan ardayga marka Kenya asagoo 3 jir lagu keenay ama ku dhashayba markii la yiraahdo Soomaali baa tayo Soomaali lagu celiyo haddana halkan ilaa standard 8 ka ku gaaray waxa ku adkaan karta marka in uu la jaan qaado iskooladka carabiga ku baxayay marka waxay warbixinadii aan diyaarinay waxa ii soo baxday in ayba qasab tahay oo waajib tahayba in loo diyaariyo dhalinta Soomaaliyeed ee hadda Soomaaliya dib ugu noqonaya iskool la jaan qaadi kara manhajka iyo waxbarashada Kenya tii hadda waan diyaarinay qaybo kamid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho asxaab ragaan nahay oo Kenya ka noqday runtii ama ku bartay jaamacada kaga baxay sida walaalkeen hadda Maxamed Umar Salaad oo kale xagga way joogaan waana wada hadalay wayna socdaan hadda systemkaas isaga meel fiican buu noo maraya dhibka qurbaha marka la yiraahdo waa su'aal labadiina baad in weydiinay Axmed adiga ku hormarayo dhibka qurbaha marka la yiraahdo waxaad arkaysaa dhalinyaro yar iyo kuwa dhexaada oo qurbaha laga soo celinayo oo leeyahay waa dhaqan celintu micnaheeduna waxa waaye in qofkii dhanka diinta waayo dhaqanka annaga aan leenahay waa diinta islaamka in wiilka ama gabadhii dhanka diinta islaamka xooga ay ka weecatay oo waxa keenaya waalidka marka la sheekaysataan waxa waaye in ilmahan meel islaamnimo lagu sheegayo weligood beenaysan arag oo iskoolaadka la geynayeen ay saameyntaas ku yeelatay ma jiraan iskoolaad diintii dhanka kalena waxaa jira iskoolaad ayagana dadka kale ay ka cabsanayaan oo leeyihiin wiilka hadii iskoolkan aan geeyo in fikrad kale oo qaldan lagu shubo oo waxyaabaha hadda Soomaaliya baabiye kamid ah oo wiilka inuu isqarxiyo ama waxyaabo kale ka suurtobaan ay uga cabsanayaan ma jirtaa marka waxbarasho midkaas qurbaha ka soo cararaya iyo midkan dalka ka soo cararaya iskool u dhaxeeyo oo qofkiina diinta si sax ah ugu baran karo waxbarashada kale oo maadiga ahayn oo si sax ugu baran karo oo qofkii oo dhexdhexaad oo nadiif meesha wax ku baranayo wali fakar noocaas ma sameeysan si dadka shoog galay labada dhinac uga baxo waa ma santa Cabdi Fataax run ahaantii Soomaalidu waa dad dhaqan ahaan reer miyi ka soo jeeday dad badan baa Soomaalida waxay inta badan dhaqan waxa uu ah markay miyiga joogaan inay daruurtu meesha ka hilaacday xoolaha oo la cararaan daruurta ay naqaasay raadiyaan Soomaalidu inta badan dadkii marka way isku dhex jiraan mid lagaga qoostay oo waxbarashada lagaga qoostay iyo mid soo iska caadi ah la keenay oo diin ahaan loo keenay iyo mid laga sameeyay la isu keenaya iyo mid dani baday dani soo cayrisay midka Soomaaliya jooga waxa laga yaabaa inay dani soo cayrisay oo dantiiba keentay oo cabsi noloshiisa ku saabsan ay Kenya keentay ama qurbaha ay keentay gaar ahaan qurbaha Kenya kii qurbaha joogana waxa dhici kara in asagana uu dareemay culays inta ka sii weyn oo noloshiisa dhanayd baanuga mustaqbalkiisa dhumin karta run ahaantiina waxbarashada anu dhowr jeer baan ka hadlay waxaan ilaadaa waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay ilaa 3 heer xilli waxay Soomaalidu soo martay baan ilaadaa macalinka uu dhihi jiray kaale aan wax ku baro may ardaygu uu dhihi jiray macallin wax i bar saad adigu jeceshayna wax i bar ardaygu codsigu ka yimid waxay u tagtay macallinkii ardaygii baa yimid waxba la baraya macallinkuna sidoo jeclaabo wuxuu baray waxa la yiraahdaa xilliyeedii kacaanka waxaa timid kaale aan wax ku baro saan jeclahay aan wax ku baro macnaha inaan ugu fikirka aniga aan rabo oo markaas haday tahay shuuciyadii iyo haday tahay Marx iyo Lenin iyo waxyaabaha loo joogin la bari jiray arday hanti wadaag iyo waxba la bari jiray marka dawladdu waxay dhigtay kaale aan wax ku baro laakiin sida asagu uu jecel yahay wax ku bari waxa ku xigtay baan yiraahdaa hadda waqtigan la joogo macallinkii inuu leeyahay kaale aan wax ku baro ardaygiina saad wax jeceshay aan ku baro dabcan waan garan karaa marka ardaygu saad jeceshay in wax loo baro ardaygu wuxuu jecel yahay inuu san handadaad la kulmin inuu freedom iska noqdo xilligu dowladda ka tooso dhagihiisa muusiga ay ku jiraan noocu doonaba ha noqdee si asaga uu jecel yahay haduu ka waayo iskoolkii ama madrasadii uu ka waayo waxa waaye waan isdeeyay waxa keenaysa mid waxbarashada hadda Soomaaliya oo kale Muqdisho aan booqday runtii bishii 10aad waxaan soo arkay guri iyo jaamacad guri iyo dugsi sare waxaan aqrinayay taariikhda Soomaaliya markaan aqrinayay waxaan ogaaday in 25 dugsi sare ay ka jirtay xilligii gumaysiga Soomaaliya maanta hal xaafad oo kamid ah xaafadaha Muqdisho ku yaala waxa ka jira boqolaal dugsi sare ka jira taa marka waxay keentay marka in
ardaygii macallimiinta ay ku tartamaan aniga aan wax ku baray ay imow ardayga hadee meesha xagee baadi nafi meel u roon raacday marka saan jeclahay waxa la ii baro maadaama lacag la baxayo dowlad macallinkii kaabaysana aysan jirin su-aashaadii haddaan usoo noqdo ahayd mid u dhexeeya ma la hayaa horta almaru ibnu bay-atihi qofku waa bay-ada uu ku noolyahay kii ka yimid qurbaha bay-adiisiibuu rabaa inuu wax ku barto way jiraan iskoollo dhinacii diinigana ardayda u tusaaleeya lagjaro muxaadaraad maalin walba soconaysa macallin khibrad u leh annagaba waan keennaa hadda iskooladanada iyo meelaha hadda aan maamulno waan keennaa kuwa qurbaha laga keenaya kuwii kale marka dabeecad heshiisiin karta maxaa yeelay aabbuhu 20 ilmood hadduu dhalay 20 dabeecadood inuu ku maamulaa loo baahan yahay laakiin dabeecadiisii kale kuma maamuli karayo waan aragnay annaga laftanada khibrad baan ka qaadanay hadda markaan ardaydii qurbahaan aragnay iyo ardaydii Soomaaliya iyo ardaydii Kenya run ahaantii waxaan dhihi karaa marka way jiraan iskoollo loogu talagalay inay ardaydaas ay nidaamiyaan sidaas hadda aan sheegay iyo sida macallinku sheegay dhaxdoodana ku jira oo ah in ardaygaasi loo diyaariyo bay-a uu ku noolaan karayo kuna habboon waxaan ku daraa inta macallinka dhameeyay waxaan ku daraa inta ayada wadan markuu burburo reer bawya kule dadkii kala cararaan 10 dhaqan la soo kala bara Soomaaliya hal dhaqan ay lahayd nin walba marka wuxuu la imaanayaa negative uu la imaanayaa minus uu la imaanayaa ama khasaare waxa kamid ah dhaqankii oo dhumay diintii oo dhutay wixii oo dhan marka intee la isku keeni karaa waxa soo dhan waxa ugu muhiimsan oo wax ka qaban kara mar kalena waan ku celinaa waa dawlad dhexe dad shakhsiyaad iyo ururo iyo sameeyay horumar fiican ka sameeyay arinta ayada in ubadka wadada laga khalday ay dib loo toosiyo oo wadadii saxneed la tusay diiniyan iyo dhaqanka Soomaali iyo waxbarasho ahaan la tusay dad dadaal sameeya jiro oo isku daray cilmiga maadiga iyo kii diiniga waan ku celinaa meeshaas ayada Soomaali waxaan aad u maalgelinay waxbarashada sare in waxbarashada sare aad loo maalgeliyana waxa ka fiican in asaasiga la maalgeliyo sababtoo ah dugsiyo sare 100 intaas oo 100 ka furan Muqdisho iyo meel kasta qofkii meel uu dugsi dhexe ka soo maray ma garanayso dugsi sare soo bilaabay arkaysa marka meesha ayada waxa ka soo baxaya qoray madaxana ka balaaran hoosna ka yaryar marka wax qiimo ay sameynaysa malahan in horta waxaan aad u rajaynayaa in madaxda dugsiyadana aan ku dhiirigelinaa in aad loo dhiirigeliyo waxbarashada hoose oo early childhood education waxa Ingiriiska lagu dhahaa waxbarashada basic ah kadib waxa soo baxay qof dhisan xitaa hadduu iskuulkii ku drop garay class 8 class 5 qofka isaga qof at least adduunka la haysto noqonaya taas waa mid waa jiraan dad inta badan dadaal sameeyay iskuulo diini iyo maadi isku dhaxdaray Nairobi waxa ku yaala iskuulo aad u badan oo la isku dhaxdaray hadda sanadkii hore imtixaankii dugsiga sare Kenya la qaaday waxa degmadan Kamakunji hadda aan joogno waxa kaalinta koobaad kaalmaha hore ka galay iskuul ay leedahay Soomaali oo inta badan ardayda dhigata ardayda banaanka laga soo dhaqan celiyay iskuulka isaga wuxuu isku dhax dhigaa diinta islaamka iyo maadiga wixiiba waa la isku dhax wadaa ardayga dhaqan celina way u tahay maadina way u tahay marka Soomaalida waa cunsur aad u dadaal badan qof shakhsi aad u dadaal badan marka maskaxdoodana markii dadka kale Kenyaanka ay yiraahdaan waxaan qaataa 7 maado diini iyo 12 maado oo maadi iyo diini ah waa way yaabaan waxay yiraahdaan waa maskax kala leedin runtii waana run Soomaalida maskax waxay leedahay waxa dhan isku qaadi karta ma ahan cunugi hadii aad iskuul maadi ageysa madrasada iskuulka maadiga markuu dhameeyo la geynayo yani waa fikir qaldan waaye iskuulla integrated la isku yiraahdo jiro afka Ingiriiska oo isku geeyay jaamacadaha kale marka uu soo laabta jaamacada ayagana aad ugu shaqeeya jira arintaas sida jaamacadda Muqdisho kale waxay leedahay ardayga si asxaab rag aan nahay oo ka soo dhigtay meesha ay sheegeen ama ganacsi bara ama caafimaad bara ama diin bara waxa khasab in maada diini aad qaadato oo thaqaaf islaamiga leeyahay ayadoo waqtiga aad noo yari aan ka faa'iideysano dawladii dhexe ee militariga ahayd iyo dalal badan oo dalalka caalamka kamid ah waxa soo maray dawladda militariga dalalkaas dawladaha militariga ay ka soo taliyeen dhamaantood waxa lagu tilmaamaa dalal waxbarashadooda ay liidato isleedahay dawladii militariga ee Soomaaliya soo martay dhanka waxbarashada waa su'aal labadiina si jamciin weydiinay maxamed ku hormaray maadaama xilligaas aad yareed laakiin dhanka waxbarashada aad ayay uga liiteen Soomaalida oo waxa ay ka fiican yihiin xilliga burburka dalka u galay ay dhanka waxbarashada ka fiican isleedahay
runtii oo hadday dowladdaas dadka uga faa'iideyn lahayd inay wax bartaan waxa Soomaaliya hadda ku dhacayna kumaysa dhaceen. su-aashaas iyada waxaan kaga jawaabayaa si kooban, dhannahaa dhanna maya. markii loo eego dadka wacyigiisa iyo siduu adduunka ula socda iyo waxbarashada kala gedisan iyo siyaasiyan qaab ahaan wax ahaan hadday fiican tahay. markii la yidhaaha tayadii waxbarashada xilliga ayada ninka dhakhtarka Soomaaliya kusoo barta East Africa iyo Africa oo dhanba wadamada ugu tayada fiican oo kamid ahaa meeshuu rabona dhakhtarka ahaa. laakiin dhakhtarka maanta Muqdisho ka soo baxa Kenya inuu imaado ma dhihi kara dhakhtar aan ahay wax baan daaweynaa, waa very difficult. أنا سوكوبي طبعا وحن كسو سوق عضني هالكلمة والمدحوني هو تنزانيا إنيري سوق هلا يا أما عبيرة يا صومالي ذا حلي جاسي جوتي سووا حلي جاسوا هم مدحوني وحيري وحو أركي طبعا وحبرشة الصومالية وحيري نكاس وكسو كوبي هدين النهاية تذكر تنزانيا سوى شعب كيس الله هلا يا صومالي ذو وحي أي inagu yidhaha inagu waxaynu hadal ku haynay hawl ahaan u qabteen guud macnaha markaa wuxuu ka cabiraya Soomaalidu heerarka ka gaadhay waxbarashada iyo markaa sida ay ahayd sidoo walaalkeen u sheegay laga soo bilaabo 54 markii ay ka yimaadeen bictadii ama ergadi ugu horeysay ee Azhar wax ku soo baratay oo Soomaali ay yimaadeen waxay noqotay meesha ugu Soomaalida loo doonto cilmiga 29kii degmo ee Soomaaliya ka tagay kacaanka uu ka tagayna degmo uusan ka jirin dugsi sare ma jirinba dhammaan 92 degmo ee Soomaaliya ka koobnayd degmo walba dugsi sare ka jiray laakiin sida ay wanaag u lahayd bay dhinaca kalena xumaan u lahayd marka la fiiriyo qaababka ay wax u bixiyeen markaas tay ahaan waxba laga sheegi jiray marka waxa qabtaa in ay waagaas fiicnid waxbarashada oo hadda ay liidato casri walba horta waa ragiisa barigaas lama haysanin qalabkan maanta iyo qof walba waxa saacidaya iyo electronigan iyo teknolojiyadan casriga lama haysanin laakiin barigaas waxaan dhigi karaa xilliga dawladihii jiray ee heer u joogto ku ahayd qofka Afrika bari kuwa ugu horeeyay ku jirtay. waa mahadsan tahay guntii gabagabada barnaamijkan soo gaarnay dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya wasiiradeedu waa ay koobnaayeen waxaana dadku ay isweydiinayeen maadaama dalkii burbur ka dhacay oo la lahaa burburkaas dalka ka dhacay waxa sabab u ahaa jaahilnimo in dowladda dhexe ugu horeysay federaalka ee Soomaaliya aan ku meel gaar ahayn laga waayo wasaarad waxbarasho oo gooni u taagan oo waxbarashada si gooni dadka wax u barta oo wasaaradda waxbarashada ay noqoto wasaarad ku dhex jirta arrimaha bulshada oo waxbarasho gooni dadka aysan ugu soo hagaagin arintaas dowladda idinka talada aad u jeedinaysaan maadaama hadda xukuumadii la rido xukuumad kale la soo wado ama caqabadaha ay u keentay wax dhanka waxbarashada idinkoo soo koobay hal daqiiqo soo koobay waliba dowladda Soomaaliya waa run arinta ayada mar walba 3-4 wasaaradood ay isku dhax qabtaa oo hal shaqo loo dhiibaa runtii wasaaradda waxbarashadana waa wasaarad aad muhiim u ah dal burbursanay 20 sano iyo in ka badan inuu dib u soo kabto waa in jahliga lala dagaalamo number 1 number 2 in amniga wadanka la sugo labada wasaaradba mar walba in la madax baneeyo oo ku talinaya aniga aadna loo la sameeyo hadiyada lagu tababari jiray macallimiinta teachers training college ee afka Ingiriiska lagu yiraahdo in la diyaariyo kulliyadii la foolay iyo aad loo howlgeliyo waxaan aad ugu faraxsanahay dhowr bilood ka hor waxaana soo booqday madaxweynaha jaamacadda ummadda Soomaaliya jaamacadda Nairobi noogu imaaday oo heshiis la saxiixday in jaamacadda dib loo furo macallimiinta iyo ardayda dhameysay ay xagga si voluntary ay u tagi karaan oo dadku wax u bari karaan iyo xiriir caalami ay la kala saxiixdeen runtii aad aan ugu farxay arintaas ayada ah wasaaradana waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya in la madax baneeyo haddana shaqada ay qabanaysa la sameeyo oo loo sameeyo oo aan mudnaanta aan la dhuminin misprioritation wax liran lagu sameynin oo laga bilaabo aasaaska waa mahadsantiin horta runtii destinationka aan leenahay hadafkeenu leenahay waa in Soomaaliya maska qaniinay laga dilo Soomaaliya maska qaniinayna waa jahliguna waa kan ummadda baabiyay Soomaalina kala gaabiyay kala reebay qeyrkeedna ka reebay maanta runtii haddii aysan dowladdu madax banaynin aysan garab istaagin dhaqaalaha ugu weyna aysan siinin wasaaradda arrimaha bulshada iyo adeeg ee waxbarashada iyo caafimaadka hadda isku haysay Dr. Soomaaliya qaasina hadda ay ballan qaaday in badan oo 1 milyan oo arday Soomaaliyeed inay u dareeri doonaan waxbarasho aysan sii adkaynin runtii Soomaaliya maska wali uu sii qaniinsanaan doonaa lagama guulgaari doono ummadda Soomaaliyeedna lagu iskuma taagi doonto
inta aan dhallaanka Soomaaliyeed aan horumar baaxad lagu tallaabsiin waxbarashada aan laga qabtirin oo la dayactirin iskooladii oo lagu faafin tuulooyinkii iyo degmooyinkii in laga gudbaa rabaa caasimada loo gudbo gobolada iyo degmooyinka dalka loo gudbo wasaaraduna waa dawladuna ku qasban tahay haddii sidaa aan la yeelinna haddii Soomaaliya cadowgeeda waa jahli bay isku laysay arintuna wali way sii taagnaan doontaa aad ay u mahadsantiin Maxamed iyo Axmed waqtigiina qaaliga ay barnaamijka madasha aqoonyahanka aad u soo horteen daawada intaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkeeni madasha aqoonyahanka oo toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda waxbarasho ee ka jirta guud ahaan dalka Soomaaliya barnaamij midkan lamid intaan ku kulmi doono waa soo saaraha barnaamijka Cabdifataax Maxamed Cilmi iyo dhanka farsamada iyo kaamirada gacan iga siiyay Cabdi Casiis Ibraahim Cali oo idinla sidaas iyo nabadgelyo